halkan wuxuu ka galay axkaamtii khitaanka gudniinka iyada lafteeda dee xagga damaanka iyo magdhowga iyo waxyaabahaasay dee xidhiir la leedahay wayajibu waxa waajiba uhi khitaanulmarati gabadhii in la gudaa waa waajib bijuz'in min allaxmati oo lagu gudo biqaطci juz'in qayb in la jaro qaybtaasoo min allaxmati ka mida hilibkii biacla alfarji farjiga xaggiisa u sarraysa ku sugnaa wاrajuli wayajibu waxa waajiba khitaanu rajuli ninkii in la gudaa baa waajiba oo lagu gudo ama wayaxsulu waa xaasilaya khitaankaasi biqaطci ma shayga in la jaraabo ku xaasilaya yuqaطii ku daboolan xashafatahu dakarkiisa inta hore bacda albuluuqi bay arrintaasi waajibaysaa qofku markuu qaan gaadho marka khitaanu rijaal isagoo waajib bilaa ishkaal ee qofkii طahaaradiisii baan dhammaystir maahaynba ilaa la gudo madhabku waxa weeye dumarkana in la gudaa inay waajib tahay waxaana u deliishadeen nabiy llaahi ibraahim se bukhaari saxiixa ku wariyey isagoo 80 jira ayuu isguday dee waxay u muuqataa in markaa la amray oo loo waxyooday ilaahayna wuxuu amray nebi maxamed iyo ummaddiisuba ay nebi ibraahim raacaan uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifa waxaa kaloo rasuulku yihi alfiطraةu 5 fiطradu waa 5 waxaanu ku daray alkhitaan waxyaabaha kale waajibnimada tusinaya waxaa ka mid a qofkan qayb jidhkiisii ka mida baa la jaraya waa la xanuujinaya waa laga dhiijinaya arrinta noocaasi haddaanay waajib ahayn in la sameeyaa may bannaanaateen sida dee qofka gacanta laga jarayo o kale xadis uu xaday awgeed in gacanta laga jaraa haddaanay waajib ahayn dee may bannaanaateen oo waxaa loo jarayaana dee ma aha in shaygani qofka uu dhibaato ku hayo sida dee akiladii oo kale xanuunkii xubnaa daadinaya hadduu qofka ku dhaco dee si loo badbaadiyo waa la jari karaa markaa taas maslaxadiisaa loo jaraya tani markaa la mid maaha ayib qiil wuxuu leeyahy ma waa sunna lirijaal wالnisa qiilla rag iyo dumar u kala qaadaya kayfiyadiisu haddaba waa sidee dumarka waxa weeyaan hilibkaa yaree farjiga xaggiisa sare ku yaala inbaa wax yar laga jaraya qolooyinkan iminka hay-adaha iyo dadkan hungurigu qaadee daba socdaa aad iyo aad bay ula dagaalamaan gudniinka dumarka waxaana laynoogu soo dhuuntay khitaankii fircooniga ahaa ee hore u jiri jiray kaasi marnaba wax bannaan mu ahayn waayo dee khitaanka ma waajiba mise waa sunne la ysku haystaa kaa mu ahaynba in qofkii dhaawacyo loo geysto oo meelo kale oo jidhkiisii ka mida layska googooyo oo halkii shareecadu ay tidhi waxa laga jaraba aan ahayn wax bannaan ma ahayn qofka arrinta noocaasiya sameeyeyna dee waa laga magdhaban karaa oo iminka dumarka dhibaatada noocaasa loo geystay islaamihii u geystay dee magdhowgooda waa u doonan karaan ama ha naloo qisaasamay odhan karaan islaantaas ile waxaan bannaanayn ba waxa weeyaan ay ku samayseen iyagoo weliba dee inta badan qaasiraad ahoo aan qaan gaadhin ee waxa noocaasiya lagu sameeyey marka kaa sidii loo lahaa dadka waa laga wacyigelinayaa ayaa khitaanka gebigiisiiba in lala dagaalamo iminka ay maraysa awal waxaa meelaha lagu soo qorqori jiray warbaahintana laga sheegi jiray gudniinka fircooniga iminka waa la iska daayey gudniinkaa la idhahdaa waa laga reebay inti kale waa lala dagaalamaya gebigiisaba sababta loola dagaalamay miyaad garanaysaan waxaa la rabaa inay faaxishada iyo xumaantu dadkan ay ku dhex faafto maqaasidii ujeedooyinka laga leeya waxaa ka mida taqliilu shahwati اlmar'a marka shareecadu jidaysay dumarka in la gudo gabadha markaa dee baahideedii iyo dareenkeedii baa la yaraynaya marka taas ayay iyagu ka dagaalamayaan walihaadaba sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu idhaahdaa dumarka faranjiyiinta nisaa lifrinji markay khitaankii gebigiisiiba ka tageen intasharat fiihim alfaaxisha buu idhahda xumaanta ayaa ku dhex faaftay weliba inagu mujtamac
mujtamac muxaafidana ma nihin oo dee sida carabtoo kale hablaha dadkeenu ulama dhaqmaan hablo muxajabaad oo xijaaban guryaha jooga markay baxayaan cid la raacinayo dee laga warhayo la ilaalinayana maaha kuwa iska saqaafaya kowda habeenimo dad magaalada soo marto dumar baa dhex socda kuwa buurtaa ka soo dhaadhacaya kuwa kasii baxaya kuwa suuqan dhex xuleed intaa arkaysa dadkiina waa bani aadam markaynu intaa nidhaahno qaar baa odhanaya wadaaddo idinkana balaa idinka raaco xumaan baad ka sheekaynaysa ma aha xaqiiqo jirta ayaad adigu dafiraysa isdiidsiinaysa baahi dad bani aadam ilaahay ku abuuray ayaad leedahay ma jirto inay jirtana waaqicaa ka markhaatiya zinada iyo faaxishada iyo caruurtaa sharci darrada dhalanaysaa masamaday ka soo daatay xumaan markaa dareen aan waddo saxa la marin ka dhalatay ayay dee ku dhasheen oo ay ku yimaadeen taasayna shareecadu ka dagaalamaysa marka wax in la dhegaysta maaha marka waxyaabay ku soo gabadan waxaa ka mida iminka ay ku celceliyaan haddaad tidhaahdaan dumarka waa la gudaya intee la jaraya waa taas inta la jaraya inta la jarayaa waa magacu wuxuu ku dhaca un maa yasduq calayhi اlism hilibkaa yar wax jaris la yidhaahdaa inta u yar baa noqotay haddii lagu sameeyo intaasaa ku filan khalaas xadku waa kaasoo dee fuqahadu way sheegeen wayakfi qaطcu maa yaqacu calayhi اlism way yidhahdeen taa ku qoran bijuzءin min alaxmati biaclى اlfarj wata matniga minhaajka inoogu taala inta waxa weeyaan u yar haddii la jaro waajibku uu ku dhacayo laguna talax tegi maayo sida xadiida ku soo aroortay marka goormay waajib tahay qofku markuu qaan gaadho bacda albuluuq wayundab waxaa la sunneeyaa buri tacjiilu in la dedejiyo fii saabici maalinkiisa toddobaad in waxa weeyaan la gudo qofka sida xasan iyo xuseen uu nebigu calayh isalaatu wasalaam ku sameeyey maalinka toddobaad in laga horraysiiyo waa makruuh bay yidhaahdaan qaala nabiyu calayh isalaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri ma doonaysaa acmaasha wanaagsan o dham inay kuu fududaato faral iyo sunnaba ma doonaysaa xumaanta naftaada inaad ka reebto aad ka goysaa inay kuu fududaato carabkaaga xuska ilaahay ha ka qoyanaado macnaa kun mukhiran min dikri illah waxaad noqotaa qof farabadinaya ilaahay subxana wa tacaala xuskiisa asalu llah alcadiim raba alcarshi alcadiim an yuciinana jamiica calى islaaxi anfusina وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.